فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawade barnaamijka maanta waxaynu uga hadli doonaa saynisyahan muslim ah kaas oo ay gaal iyo muslimba caddaan iyo madowba ay magaciisu ku hadaaqaan had iyo jeer si niyad ahna ay ugu mahadceliyaan haddii uusan isaga jiri lahayn ama uusan soo saari lahayn waxyaabaha uu soo saarayna sayniska maanta waxa uu noqon lahaa qabyo mana jiri lahayn baasaboor sawir iyo muuqaal midnaba. haddaba saynisyahanka aynu ka hadlayno magaciisu waa abu cali alxasan ibnu xasan ibnu alhaytham. waxa uu ku dhashay magaalada basra ee dalka ciraaq taariikhdu markii ay ku beegneyd 354 hijriyada oo ku asteysan 965 miilaadiga. ibnu haytham oo ay reer galbeedku u yaqaanaan alhazayn oo ah magaca alxasan oo laatiin ah ayaa dadka qaar u yaqaanaan albasri oo waxay ugu magac daraan magaaladii uu ku dhashay ee ahayd magaalada basra, halka dadka qaarna ay u yaqaanaan almisri sababta ay ugu bixiyeenna ay tahay inuu muddo ku noolaa waddanka masar. ibnu haytham markii uu yaraa wuxuu aad u jeclaa akhrinta culumta xisaabta iyo tanfiisigiska. akhrintana waxaa ka saacidayay inuu yaqaanay luqado kala duwan oo waaga wax lagu qori jiray. waqtigu wuxuu isrogaba ibnu haytham waxaa loo magacaabay wasiirka magaalada basra iyo deegaanada ku hareereysan, wuxuuna go'aan biyo kama dhibcaan ah ka qaatay xilka isagoo jeclaystay inuu noqdo aqoon-yahan yaqaana diintiisa iyo sayniskaba. ibnu haytham waxa uu marka hore bartay diinta islaamka kadibna wuxuu aad u dabagalay kutubtii cilmiga. culimmada uu wax ka qaatana waxaa ka mid ah abulcabaas alqalafi, yacquub alkanadi iyo abu xasan saabit. ibnu haytham waxa uu ahaa hindisaa, saynisyahan, mufakir iyo xisaabyahan. wuxuu ahaa aqoon-yahan daahqaaday qaar ka mid ah culumta aasaaska u ah sayniska casriga ah, wuxuuna ikhtiraacay qalabyo kala duwan, wuxuuna sameeyey tijaabooyin fara badan si uu u fahmo nidaamka isku xidhan ee aragga, ilayska iyo indhaha. ibnu haytham waxa uu dejiyey xeerarka aragga dhow iyo midka dheer, wuxuuna u guurgalay cilmiyada xisaabta, handasada, cilmiga qalliinka caafimaadka, falsafada, dhulxariiqa, culumta caafimaadka indhaha, cirbaradka ama cilmiga loo yaqaano xidigiska, wuxuuna aad u jeclaa culumta la xiriira fiisigiska iyo cilmiga dhaqaaqbaradka. ibnu haytham waxaa loo yaqaanaa aabbihii aragga, waayo saynisyahanadii hore ee giriiga waxay aaminsanaayeen in isha gudaheeda ay ilaysyo ka soo baxaan kuwaas oo u suuragelinaya inay ishu wax aragto, balse aragtidaasi waxaa ku tilmaama been la dhoodhoobay dabadeedna dhar loo xiray saynisyahankan isagoo weliba daaha ka qaada caddeeyeyna in ishu aynan ka soo bixin wax ilays ah, hase ahaatee ilaysku laftiisa uu isha galo isagoo ka yimaada cadceedda. ibnu haytham waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay saynisyahankii ugu horreeyey saynisyahanada iyadoo loo aanaynayo inuu ku xoojin jiray aragtiyihiisa tijaabooyin xaqiiqi ah, oo ibnu haytham waxa uu raaci jiray tallaabooyin la mid ah kuwa ay maanta raacaan saynisyahanada casriga ahi oo ah aragtiyada in la mariyo tijaabooyin kadibna la xaqiijiyo saxsanaantooda. wuxuu ibnu haytham qabaadhigay qabaaniinta falaar noqodka iyo falaar qalloocsanka isagoo ogaaday in jihada iftiinka uu isbedelayo markuu isaga tallaabayo laba shay oo kala cuf badan. sidoo kale waa saynisyahankii caddeeyey inuusan dayaxa soo daynin iftiin uu isaga leeyahay, balse iftiinka ka yimaada dhankiisa uu yahay falaar noqod ka yimid asal ahaantiisa qoraxda. ibnu haytham sidoo kale waxa uu sharaxay habka ay muujiyaan dareenwadka aragga sawirka isagoo tilmaamay in sawirka uu gaaro isha qaybteeda dambe isagoo jaanrogaal ah. sidoo kale ibnu haytham waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee alifa kaamirad wax sawirta, oo waxa uu aragtidan ku ogaaday baa la yidhi in boqorkii masar uu askartiisa ku yidhi orda oo inoo keena aqoon-yahan noo dhisi kara biyo-xireen. kadibna askartii markii ay yimaadeen goobtii cilmiga ee magaalada basra ayay aqoon-yahanadii weydiiyeen yaa inoo dhisi kara biyo-xireen. markiiba ibnu haytham ayaa yidhi aniga ayaa awoodi kara oo idiin dhisi kara biyo-xireen. askartii ayaana sidii ku waday ilaa ay ka geysay waddanka masar, wallow ay taariikhyahanada qaar ay sheegaan in wasiir ka mid ah wasiirada boqorka xaakim biamrillaah uu la kulmay ibnu haytham. ibnu haythamna uu yidhi alla ilaahay haddii aan joogi lahaa waddanka masar waan dhisi kari lahaa biyo-xireen aad u weyn weliba anfaca dadkeeda. hadalkii ayaa wasiirkii waxa uu u sheegay boqorkii ayaana yidhi hala ii keeno ibnu haytham, haddii uu dhiso biyo-xireenkan aniga iyo isagaba magac ayaa naga haraye. ibnu haytham shaqadii waa uu ku guul daraystay,
boqorkiina waxa uu ciqaabtiisa ka dhigay inuu ka shaqeeyo meel aanan u qalmin. waxa uu waqtiga isrogaba ibnu haytham waxa uu go'aan ku gaaray inuu iska dhigo qof waalan si uu boqorka u daayo isagana uu magaalkiisa u galo, balse boqorkii ayaa yidhi ilaa uu ka caafimaadaya ha la geliyo xabsi guri. inta uu ibnu haytham xabsiga ku jiro ayaa waxa uu arkay ilays ka soo gelaya meel duleesha dabadeedna ku dhacaya derbiga kale, oo derbiga waxaa ku sawirmaya guryaha bannaanka ku yaalo oo jaanrogaal ah. sidaa ayuuna ku ogaaday in isha wax weliba ay arkayso ay gedisgedis u aragto. sidoo kale alifidda kaamiradana fikraddeeda halka ayuu kala baxay. taariikhyahanadu waxa ay sheegaan inta uu xabsiga ku jiro ibnu haytham inuu qoray kitaabadiisa kitaabka ugu caansan, kaasoo ah kitaabul manaadir. daawade waxaa macquul ah inaad weli isweydiinayso siduu ninkani ku alifay ama ku helay kaamirad. taasi waa mid fudud ee bal ila fiiri labadaa nin. midkood ayaa duleelinaya meel si ay falaaraha cadceedda uga soo galaan meesha, kan kalena waxa uu soo qaadayaa mara cad oo lagu istaajiyey bir. kadibna qolka nalkiisa ayaa la daminayaa si aynu u aragno dabaqyada bannaanka ku yaala oo jaanrogaal ah ama gedisgedis ah. waana sida ay u shaqeeyaan kaamirooyinka aynu isticmaalno haatan. ibnu haytham waxa uu qoray 200 oo buug oo ka sheekeynaya shaqooyinkii iyo ikhtiraacadii kala duwanaa ee uu sameeyey, balse nasiib daro keliya waxaa la garanayaa 96 ka mid ah buugtiisa, halka ilaa iyo maanta la haayo 50 ka mid ah buugtaasi oo badbaaday. ku dhowaad kala bar buugtaasi waxay ka sheekeynayaan xisaabaad, 23 ka midana waxay ka sheekeynayaan cilmul falaga ama cilmiga loo yaqaan xidigiska, 14 ka midana waxa ay ka hadlayaan ama uu ku sharaxayaa aragga. buugaagta uu qoray saynisyahankan buugga ugu caansan ee loo yaqaano kitaabul manaadir ayaa loo turjumay luqadda Giriiga, waxaana ka faa'iideystay aqoon-yahanadii reer Yurub xilligaasi aqoon-doonka ahaa iyo kuwii ka dambeeyaba. waxaa la sheegaa in Isxaaq Newton uu ahaa ninkii ugu horreeyay ee alifay cilmiga cadceedda, balse taasi run ma aha oo waxaa kaga horreeyay caalimkani Xasan ibnu Haytham. sidoo kale caalimkani waxa uu horumariyay xisaabta loo yaqaan analytical geometry, isagoo aasaasay birji isku xidh ah kaasoo ka dhaxeeya aljabra iyo geometry. dhanka caafimaadka iyo cilmi nafsigana Al-Haytham wuxuu si sax ah u qeexay qaybaha kala duwan ee isha ka kooban tahay, isagoo mid kastaba siiyay magac scientific ah. ilaa iyo haatan aqoon-yahanada qale indhaha aad ayay u akhriyaan buugtiisa iyagoo qaadanaya tallaabo weliba oo halkaa ku xusan. dhanka iyo cilmul falagana ibnu haytham waxa uu qoray buugaag aad u fara badan oo ay ka mid yihiin buugga habdhismeedka dunida iyo buug oo ugu hadlayay qaab socdaalka 7 meere ee dunida oo ah buug aad ugu muhiim ah dadka baranaya cilmiga xidigiska agtooda. ibnu haytham waxa uu noqday nin dunida daafaheeda laga xushmeeyo maanta. dalka Bakistaanna waxaa ku yaala isbitaal weyn ee ku dhex yaala jaamacadda Aga Khan, waxaana lagu magacaabaa ibnu haytham, waxaana lagu bartaa laguna daweeyaa cudurrada indhaha. diinaarka dalka Ciraaqna waxaa ku sawiran wejigii ibnu haytham. qaramada midoobe markii ay dowladda Ciraaq baaritaan ku haysay xilligii Saadaam, magaca ibnu haytham waxa ay u bixiyeen macmal lagu baaro waxyaalaha kiimikada ee dalka Ciraaq laga soo helo. xushmada, qadarinta iyo maamuuska loo hayo saynisyahankani aadka u weyn ayaa waxa ay gaartay in lagu magacaabo god dayax dushiisa ku yaalo oo ka mid ah godadka ay qaraxyada sameeyaan. qoraahyadii cajiibka ahaa ee laga dhaxlay ibnu haytham waxaa ka mid ah: haddii uu saynisyahanku hadafkiisu yahay barashada runta, waa inuu naftiisa cadow uga dhigaa dhammaan waxyaabaha uu aqrinayo. wakhtiga shaqada ma haboono in lagu mashquulo wax aan shaqo ahayn. shaqadu ma aha dhammaadka waddada guusha ee waa waddadii aan ku gaari lahayn farxadda iyo hantida. innagu waxaynu shaqaynaa qayb ka mid ah maalinta, qaybta soo hartana inaga unbaa iska leh. had iyo jeer waxaan daba socdaa garashada xaqiiqada, waxaanan rumaysanahay inaan Rabbi ugu dhowaanayo. dusheedana waxaan ahaaday inaan ugu faa'iideeyo dadka cilmiga uu Rabbi i baray, ee Allow ii siyaadi cilmigayga, iguna anfac waxaad i bartay, kana yeel waxaad i bartay wax ay dadku si weyn ugu intifaacaan. daawade, barnaamijkeena maanta halkan ayaan kusoo gabagabaynaynaa, ee fadlan walaal faafi janalka oo gaarsiiya asxaabtaada. mahadsanid. inta aan barnaamijkan oo kale amaba ka qiimo badan ku wada kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa: dunidu waa dulqaad, dadaalkuna waa muhiim.